Salaamu calaykum. Soo dhawaada dhalinyaro. Maanta waxaan jeclaysiin soo gudbiyo film lagu magacaabo Game Road Apocalypse. Fadlan haddii ay tahay markii koowaad soo booqato channelka, ugu soo dhaweynaynaa. Haddii aad hore noola sii joogteen ku soo dhawow muuqaalka wax xiiso leh. Dhowr sano ka hor saadaasha hawada ayaa ku burburtay dhul saxaro ah, inkastoo aanay burburka kadib geysan wax dhibaato ah, balse hadda dadku waxa ay bilaabeen inay tartiib tartiib isu beddelaan, isagoona midba midka kale ugaadhsanayo. Waxaana soo baxday in hawada ku faafay nooc fayras ah kadib burburkii saadaasha. Fayraskaas oo dadku u beddeleen nooc zombie ah, aadna u shabaha dadka. Marka laga reebo inuu khatar badan yahay, fayrasku waxa uu si dhaqso ah ugu faafay hawada. Ma jiro qof iska difaaci kara fayraska marka laga reebo dadka leh nooca dhiigga ee kuwaas oo keliya ku qaadi kara qaniinyada. Bilowga filimka waxaanu jeednaa Brooke oo hadda isku beddeshay zombie. Waxay isku dayeysay inay weerarto ehelkeeda, balse walaalkeed Barry ayaa joojiyey, isagoona siiyey nooc difaaca fayraska kana kooban dhiig dad. Cabitaanka ka hortagga kadib, Brooke waxay bilowday inay ku soo noqoto xaalkeedii caadiga ahaa. Wax yar kadib waxaa daaha laga qaaday in Brooke tahay isku dhafka bini'aadam iyo zombie. Waxay maamushaa inay xakamayso rabitaanka zombiga, balse marka ay ka baxdo xakamaynta waxa ay u baahanaysaa difaaci ka koobnaa dhiigga dadka. Dhanka kale, Barry waxa uu leeyahay nooca dhiigga ee oo aan weli la qaniinin, taas oo ka dhigaysa nooca bini'aadamka dhifka ah ee ka badbaaday fayraska. Aagga cidlada ah ee keynta waxaa ku nool askari hore laguna magacaabo Reese. Waxa uu xaaladda ka sameeyey wax wanaagsan, oo waxa uu ku nool yahay goob la ilaaliyo kuna socota dhiigga zombiyada. Sidoo kale qaybtan zombiyada waxaa loo sameeyey xayndaab, taasi oo lagu ilaalinayo neefta zombiyada si loogu isticmaalo shidaal ahaan. Sidoo kale dhiigga zombiyada waxaa loo adeegsan karaa shidaal. Maalinkii xigtay, Reese jimicsiga kadib waxa uu cunay kiniin huruud ah, kaasi oo ah nooc ka mid ah difaaca fayraska. Waxaanu gudagalayaa ugaadhsigiisa zombiyada maadaama ayna goobta ka fogeyn. Maalin kastana waxa uu soo ugaadhsadaa dhowr zombiye ah si uu uga faa'iidaysto neeftooda iyo dhiiggooda. Waxaanu gudagala ka faa'iidaysiga zombiyada isagoona ku khiyaameynaya hilib. Taasi waxa ay zombiyada ku sababaysaa dhaqaaq badan, taasi oo laga dhalinayo koronto. Waxa kaloo si maalinle ugu celiya la dagaalanka zombiyada si uu u ilaaliyo awooddiisa jidheed. Maalinkii xigtay, Reese waxa uu arkay nooc zombie isku dhaf ah oo wata mooto, kaasoo socda meel aan aad uga fogeyn goobtooda. Waxaanu bilaabay inuu rasaasta ku rido. Waxa uu ku hayay qorigiisa si uu u qabto. Intaa kadib waa uu isdhiibay, waxaanu u kacay xagga shaybaadhka dowladda, kaasoo loogu talagalay in lagu helo wadada ugu dambeysa ee dabarjirka zombiyada. Cilmi baadhaha asaasiga ah shaybaadhka laguna magacaabay Spider waxa uu rajeynayay inuu maalin u helo qof isku dhaf ah si uu ugu dambeyn ugu guuleysto dawada rasmiga ah ee fayraska. Dhanka kale, Reese ayaa markasta isku dhaf keena goobta shaybaadhka si ay dhakhaatiirta uga caawiyaan in si dhaqso ah loo helo dawada ciribtirka fayraska, isagoona ku taamay in mar uu nolosha ay ku soo noqon doonto sidii caadiga ahayd. Dhanka kale, Reese waxa uu qaadanayay kiniiniga huruudda ah, kaasi oo sidoo kale loo isticmaalo in dadku si ku meel gaar ah ugu sii sugnaadaan xaaladdoodii caadiga ahayd. Dhanka kale, maalinkii xigtay, Reese waxaa la siiyey bartilmaameedkiisa xiga, kaasi oo ah 2 hablood oo walaal ah, sidoo kalena ah isku dhafka zombie iyo xaalad caadi ah. Waxa uu filayay inuu isbeddel ku samayn doono nolosha, isagoona isku dhaf kasta u soo qabanaya ujeeddo isbeddel ku saleysan. Sidaa awgeed waxa uu ka fikirayay sidii uu u soo qaban lahaa bartilmaameedkiisa xiga. Dhanka kale, waxaynu u jeednaa mataanaha isku dhafka laguna magacaabo Max iyo Grace ahna bartilmaameedka Reese. Waxay ku sii jeedaan meel qarsoodi ah, halka dareenka zombiga ee Grace uu yahay mid kacsan, taasi oo ku kalifisay inay iscelin kari weydo. Max waxay ka caawinaysay Grace inay xakamayso dareenkeeda, iyadoona siinaysay noocii difaaca ee ka koobnaa dhiigga dadka. Markan xaaladda Grace waa mid degan. Dhanka kale, Reese waxa uu dhamaalaysanayay sidii uu gacanta ugu soo dhigi lahaa mataanaha isku dhafka ah. Waxaanu bilaabay weerarkiisa koowaad isagoona adeegsanaya qori. Waxaanu qalimay gaadhiga. Grace kooma ma gelin sida Maxi, waxayna bilowday inay weerarto Reese. Ugu dambeyn, Reese waxa uu gacanta ku dhigay Grace, danka ma gelin inuu baabuurka ka eego walaasheed kale. Waxa uu hore u kaxaystay Grace. In yar kadib, Maxi waxay ka soo baxday koomadii. Waxay bilowday raadinta Grace. Dhanka kale, Reese waxa uu Grace u waday dhanka shaybaadhka. Inta ay ku sii socdeen wadada, Grace waxay soo kacday iyadoo zombie ah. Tanina waxay kordhisay awooddeeda.
waxayna ka dhigaysaa weeraradeeda mid aad u daran. Waxay maamushaa inay dabin u dhigto Reese, balse waxa uu ku qanciyay inay cabto difaacii dhiigga ka koobnaa marka ay xaaladeedu ka soo noqoto sidii caadiga ahayd. Sidoo kalena uu sii hayo dhabbadiisii dhanka shaybaadhka. Dhanka kale waxaynu u jeednaa Spider waxa uu adeegsanayaa zombie si uu u helo dawo joojinaysa habka isbeddelka maalinlaha ah. Waxaanu si ku meel gaadha isugu miday dawadii, balse waxaa dhankiisa soo aaday korneylka iyo askari kale oo ku guda jiray howlgalka. Waxayna qoryahooda ku qabteen Spider iyagoona ugu hanjabayay inuu si qaldan u isticmaalo xoolihii dowladda, balse korneylku waxa uu kolkiiba dilay askarigii. Waxaana soo baxday in korneylka iyo Spider laftoodu ahaayeen nooca isku dhafka ah, waxayna rabeen inay helaan dawo hoos u dhigta heerka isbeddelka maalinlaha ah. Qof walba way khiyaameen, sababtoo ah isku dhaf kasta oo la soo qabto uma isticmaalin daweynta dadka ee waxay u isticmaalayeen si ay u fushadaan danahooda, taasi oo ay iyagu u isticmaali jireen si ay u yaraato heerkooda isbeddelka maalinlaha ah. Sidoo kale waxay ka wada hadlayeen sidii ay uga shaqayn lahaayeen tijaabo kale oo cid kasta ka qarsoon. Wax yar kadib, waxaa goobta shaybaadhka soo galay Reese, isagoona shaybaadhka gacanta u geliyay Grace, waxaana u baxay dhanka iyo gurigiisa. Intii uu ku sii socday waddada, waxa uu qabtay zombie isagoona u qaatay xagga gurigiisa. Dhanka kale Max waxay dusha kala socotay Reese, waxaana u daba kacday dhanka iyo gurigiisa. Reese markuu yimi gurigiisa waxa uu iftiin iskaga mashquulinayay zombiyada si uu gudaha u galo, balse wax yar kadib Max ayaa soo gashay guriga iyadoona demisay nalalka. Reese waxa uu isku dayay inuu shido nalalka si uu u arko Maxi, balse kuma guulaysantaa. Waxaana afduubatay Maxi. Subaxii xigay waxay ugu hanjabaysay inuu u sheego halka ay walaasheed ka heli karto, maadaama aanu haysan waddo kale. Waxa uu oggolaaday inuu u kaxeeyo xagga shaybaadhka. Intii ay ku sii jeedeen goobta shaybaadhka, Maxi waxay heshay sawirkii bartilmaameed ahaan loo siiyey Reese, waxaana bilowday inay weydiiso waxa uu ka shaqeeyo, balse si guud mara ayuu ugu sheegay in keliya lagu amray inuu keeno goobta shaybaadhka. Intii uu hadalka waday, waxa uu xakameeyey inuu gacanta ku dhigo hubkii ay ku haysay. Maxi waxa uu ku xidhay kursiga, isagoona u gudbiyey korneylka. Dhanka kale, korneylka iyo Reese waxaa soo kala dhex galay muran. Si degdeg ah muranku wuxuu isku beddelay dagaal. Reese waxa uu toogtay korneylka, waxaanu ka cararay goobta isagoona hore u sii watay Maxi. Korneylka oo dhaawacan iyo ciidankiisu waxay kolkiiba daba kaceen Reese, iyagoona ku furay hubkooda. Ugu dambeyn waa la qalibay baabuurka, iyadoona gacanta lagu dhigay Reese isagoo kooma ku jira. Markii uu ka soo kacay koomada, waxa uu arkay isagoo geed ka soo laalaada, halka ay ku hareysnaayeen korneylka iyo ciidankiisii. Korneylku waxa uu aflagaadeynayay walaalka Reese oo ahaa askari hore kana tirsanaa ciidanka, balse ciidan kale oo ka soo horjeeda ay nolosha ku gubeen. Intaa kadib Reese waxaa looga tegay zombiyada. Zombiyaduna waxay bilaabeen inay ku goobtaan, iyagoona in yar u jira inay cunaan, halka uu Reese ku dayay inuu iska xajiyo geedka. Waxaana goobta timi Brooke oo wadata ciidankeeda zombiyada, waxayna u kaxaysteen goob kale si ay u weydiiyaan halka ay ku sugan tahay Grace. Reese wuu diiday inuu u sheego iyaga. Brooke waxa ay weerartay Reese, taasi oo sababtay inuu si dhaqso ah ugu sheego halka ay ku sugan tahay Grace. Waxaana u sheegay wax walba oo uu ka yaqaano korneylka iyo Spider, isagoona u sheegay inay wax walba u qabanayaan sidii ay u heli lahaayeen dawo lagu cirib tiro fayraska, isagoo aan weli garowsan shaqada saxda ah ee ka socota shaybaadhka. Dhowr saacadood kadib, Brooke iyo ciidankeedu waxay soo jabsadeen albaabka shaybaadhka, waxayna arkeen meydka zombiyo badan oo ku kulmay goobta. Waxaana taasi caddaynaysaa inay dhakhaatiirtu heli wadaan tijaabada, balse weli ma aysan dilin Grace. Waxay sidoo kale arkaan kiniiniyada huruudda ah oo laga sameynayo hadhaaga meydka. Reese waxa uu arkay meydka nin isku dhaf ah hore u soo qabtay oo ku dhex jira biyo, halka mid ka tirsan shaqaalaha shaybaadhku uu ka warramayay in zombiyada isku dhafka iyo dhiigooda loo isticmaalayo oo keliya in lagaga hortago isbeddelka maalinlaha ee korneylka iyo Spider. Reese aad ayuu u naxay markii uu maqlay arrinta, waana xanaaqay markuu ogaaday in dana gaara lagu fushaday awooddiisa. Waxaanu leeyahay shaqaale badan. Intaa kadib, Brooke waxay zombiyadeedu ku amartay inay dilaan qof walba oo ku sugnaa xarunta shaybaadhka, halka ay Maxi raacaysa dalool gudaha aadaya si ay u soo raadiso walaasheed Grace, halka Brooke iyo zombiyadeedu u sii socdaan dhanka qolka maamulka, iyagoona dilay qof kasta oo jidgooyo ku noqon kara. Brooke ugu dambeyn waxay soo gaadhay qolka maamulka oo ay ku jiraan korneylka iyo Spider. Spider waxa uu soo bandhigay zombi leh xeelad gaar ah oo gacan ku samaysa, kana awood badan kuwa kale, halka ay Brooke ku amartay zombiyadeedii in la dilo zombiga khaaska ah, balse wuu ka awood badan yahay iyaga. Spider waxa uu adeegsanayay gacmihiisa si uu u xakameeyo zombiga khaaska ah. Zombigii khaaska ah waxa uu bilaabay inuu baabi'iyo dhammaan zombiyadii caadiga ahaa marka laga reebo Brooke, isagoona gidaarka ka jaray. Brooke lama dagaalami karto zombigan khaaska ah. Markan Brooke waxay in yar u jirtaa inay dhimato.
balse in yar kadib waxaa dhaqdhaqaaqa joojisay gacanta Spider, taasoo sababtay in zombigii khaaska ah gacantiisu joojiso shaqada. Gacanta Spider waxay u istaagtay sababta gaasta ku xidhan Grace. Intii uu Spider ku mashquulsanaa Grace, Brock waxay weerartay zombigii khaaska ah, halka wax kasta oo soo gaadhay zombigii khaaska uu dareemayay Spider. Ugu dambeyn, Brock waxay koronto ku qabatay zombigii khaaska ahaa. Dhanka bannaanka, Reese iyo Barry waxay la rafaadsan yihiin korneylkii, waxaana ku hayay qori. Waxay ilbiriqsiyo u jireen inay dhintaan, balse Max ayaa ka soo gaadhay iyadoona ku qabatay qorigeed halkaana ku dishay korneylkii. Aanu ku noqono gudaha, Brock waxay isku beddeshay zombie iyadoona weerartay Reese iyo Barry, waxayna u baahan tahay difaacii dhiigga ka koobnaa, balse cidna ma hayso marka laga reebo Max oo aan u dhoweyn iyada. Max sikadiisa ayay kusoo gashay gudaha, waxayna guda gashay si ay u badbaadiso Brock waxay kusoo noqotay xaaladeedii caadiga ahayd, balse waxay ogaatay inay qaniintay Barry, halka Spider uu xarunta ku xidhay walxaha qarxa isagoona ka cararay goobta. Inta aysan qarxin goobta, Brock waxay gaasta ku xidhaa Barry, halka Reese iyo Max ay ka baxeen goobta. Qaraxa kadib, Spider waxa uu dhiigga Grace u isticmaalayay dawo ahaan, halka laba nin oo ciidan ah ay garwaaqsadeen in Spider yahay zombie, balse kolkiiba waa uu dilay. Cabaar kadib, waxaa goobta soo gaadhay Max iyo Reese. Max waxay u carartay xagga Grace oo kooma ku jirta, halka Reese uu la dagaalamayay Spider. Reese waxa uu in yar u jiraa inuu dhinto, balse waxaa soo kacday Grace, halkaana ku dishay Spider. Dhanka kale, Reese waxa uu isku sii beddelayay zombie, balse Max ayaa sakininkii jaalaha, iyadoona ka codsatay inuu kooxdeeda kusoo biiro. Filimkan waxa uu kusoo dhammaanayaa Barry iyo Brock oo kasoo badbaaday qaraxii xarunta shaybaadhka, iyagoo aanay waxyeello soo gaadhin. Fadlan haddaad ka heshay muuqaalka faafi oo la wadaag asxaabtaada, hana hilmaamin inaad like saarto.